maamulka dawladda hoose ee degmada Wajaale ayaa saaka subaxnimadii hore wada carakawa dhigay agagaarka sariimada weyn ee degmada Wajaale sidoo kale maamulka dawladda hoose ee degmada Wajaale ayaa wada banayn ka sameeyay xaafadaha bariga degmada Wajaale waxaana howlgalkan lagu dhigay carakawada horkacayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka dawladda hoose ee degmada Wajaale mursal nooc Ismaan xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Wajaale Cabdilaahi Xasan Samaale iyo waliba taliyaha saldhigga degmada Wajaale Cabdiraxmaan Maxamed Madar mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay ayaa iyagu waxay shacabka ku dhaqan degmada Wajaale ugu baaqeen inay barbar istaagaan horumarka ay maamulka dawladda hoose ee degmada Wajaale ka sameynayaan gudaha degmada Wajaale mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii la subaxii ku bilownay inaanu waxa weeye wadooyinkii aanu sameeyno degmada Wajaale waxa weeyaan de roob ayuunba waxa weeye gaab ka keenay iyo raxmadii noo daaysay roobkooda ayana wadooyinka lama sameyn karo horta dadweynuhu inay sida u ogaadaan degmada Wajaale ayaa horta ayaa loo baahan yahay roob daaya wada lama sameyn karo laakiin markay raxmadu inaga qaado ayaynu wadooyinka simanaa oo inu hagaajinana oo inu carrada dhigana inay bulshaduna taa ay ogaato fariintaan u dirana taa weeyi haday ganacsato tahay iyo haday bulshada kale tahay qaybaheega kala duwan inay u diyaar garoobaan ayaa waajiba magaalada inaynu carakawadii dhigayno haday bari tahay iyo haday galbeed tahay iyo haday waqooyi tahay intaba waynu dhiganaa ee barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen dadka shakhsiyaadka ah ee meelaha ka hadlaya ee khali wareegaya ee waxa weeye waxba lama qaban leh ee waxa weeye ka qayb qaadan leena maanta horumarko iyaan laga badin baan leenahay waxa weeye contribution kaagi keen maamulkii degmada Wajaale diyaar bay u yihiin inay ka qabtaan wax wadooyinkii inta kaliya gaabka keentay ee habsaka keentayna waa raxmaadka Ilaahay daayay maanta waxaan iskugu nimidnay halkan hawlgal wadooyinka ah كمامول هان هذا مامولك دقمة وجاله هراء يدنبابا وان شاقناي ميديا هان كشاقناي إن ميكروفونا هان كشاقناي هرمرك الدقمة إن هبين يمالين بان ديارو نهين لغا شقايو رحمة فربضان او إلهي نسيي اون دقمة وجاله لك بين دلك انتي سكالة او إلهي نسيو إلهي نور نحيبا وجاله كداي كاس اوغيب بان مدحا كورو قادي كرويني إنك عيدا ما أنت أنباهينا بالبيتالي واحد نوسورو واي عيدا إلا باهية رحمة أوجد ودوينك كلا شقاد ودنا سداس باي هيد waxaan ka baqnay in hadii wadooyinkii aan dhigno ciid in sida tanba u xidhantay ay iyaguna u xidhmaan sida daraadeed alxamdulillaah rabbil caalamiin saaka ayaa qorshihii horumarineed ee dhinaca wadooyinka haday tahay wadooyinka isku sibistooda haday tahay drainage-ka iyo biyo mareenada sameeyntooda haday tahay wada dhigista ciid carakawooyinka wadada la dhigayo haday tahay magaalada gudaheega iyo haday xaafadaha tahayba wixii aan u qorsheynay ka maamul ahaan waanaga maanta bilownay barakaat anagu kulli waxa aad noo qosay waa amniga wadooyinku waxay ka qayb qaataan amniga dhinacna waa ka communication waa isgaarsiin imika dhibaatooyinka ugu badan waxa weeye marka hawlaha soo kala la qabanaya ee roobku imika uu nimcadu daaday wadooyin badan bay naga joogsaday oo maridooda adkaatay waayo waa nimcada dadkuna kulli way cabanayaan oo nimcada kulli abaar bay ka cabanayaan kulli nimco maanta waa maalintii nimcada ka cabanayaan ku shughul naqayna waayo waxa weeye waxaan u baahnayn baahdo maanta Wajaale waxaad marsa quruxdeeda marka dibadaha uga baxdo meel alla meel waliba waa doog meel waliba waa daaq baxaya meel waliba waa qurux badantay marka loo dul qaato wixii dhiiriye iyo dhibaato anaguna ka qayb qaadan amnigayga waanaga taagan hadiya habeenna waa loo taagnaanaya tan wadooyinkana qaybteedo lixaad laan ka qaadanayna Khadar Cabdilaahi telefishinka caalamiga Somali News TV magaala ganacsiyeedka degmada Wajaale